وداود doontaan waxa qayb ka ah xaalad dagaal oo waqti xaadirkan ka taagan duleedka magaalada Laascaanood iyo duqeymo lagu garaacay xerooyinka ciidanka maamulka SSC Khaatumo ee Gumeys iyo deegaanada kale ee dhaca duleedka magaalada Laascaanood hadaba duqeyntaas ayaa ka dambeeya sidoo kale maxayeen waqti xaadirkan dhaqdhaqaaqyada ciidamada militariga Soomaaliland ee ka wadaan deegaanada Og iyo sidoo kale salinta xogta rasmiga ah ee arintaasi ku saabsan ayaan kula wadaagi doonaa qodobada kale daawad doontaan waxa qayb ka ah madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo waqti xaadirkan ku jira qabanqaabadii ugu dambeysay shirka beesha warsangeli iyo dowlad goboleedka Puntland Suldaan Saciid iyo sidoo kale jarnaalka guud ee beesha warsangeli Jarnaal Inda Yare oo waqti xaadirkan ku sugan magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland maxay tahay waqti xaadirkan qorshaha Saciid Cabdullaahi Dani uu ka leeyahay kulanka uu doonayo inuu la qaato beesha warsangeli sidoo kale maxaa ka jira wararka sheegaya in madaxweynaha Puntland gabiyaanba uu xilka ka qaadi doono madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Lukator sidoo kale la keeni doono qof u dhashay beesha warsangeli qofkaasi miyuu yahay waqti xaadirkan ninka lagu magacaabo Dhoobo Daarid waxaan kaaga hayaa xogo iyo warbixino dheeraad ah sidoo kale qodobada daawad doontaan waxa qayb ka ah dhaqdhaqaaqyo xooggan oo laga dareemayo deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland ciidamada Jubbaland oo dib u soo laba kacleeyay iyo Axmed Madoobe oo dowladda Kenya waqti xaadirkan taageero ka helay maxaa waqti xaadirkan ka socdo gobolka Gedo ciidamada dowladda ee Cabdirasiid Janan oo waqti xaadirkan heegan galay iyo xogta rasmiga ah ee arrimahaas ku saabsan ayaan kula wadaagi doonaa qodobadaasi iyo wixii kale nagu soo kordhay ayaa daawad doontaan balse marka hore soo dhawaada lagsar muuqaalka la wadaag saaxiibada sidoo kale qayb ka noqo saaxiibada ku xiran janalka Ismaaciil Shiine waxaan ku soconaa wadadii aan ku gaari lahayn 20,000 oo subscribe kaliya safarkeen adiga ayaa ka dhiman ee suulka saar oo subscribe inoo saar janalka mahadsanidin waagaga inuu ku bilowno wararka ka imaanaya duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool si gaar ah saliyada ciidanka maamulka SSC Khaatumo halkaas ku leeyihiin waxay sheegayaan in laga maqlay qaraxyo waaweyn xerooyinka ciidanka maamulka SSC Khaatumo si gaar ah deegaanka Gumeys qaraxyadan inkastoo waqti xaadirkan aan si dhab loo ogeyn waxa ay yihiin haddana wararka qaar waxay sheegayaan in diyaarad dagaal galabta ilaa iyo caawa lagu arkayay saliyada ciidanka maamulka waqooyi bari ee ku yaala duleedka magaalada Laascaanood si gaar ah saliga lagu magacaabo Gumeys halkaasi oo Soomaaliland dhawaan ay sheegtay inay ku sugan yihiin cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasi oo garab siinaya ciidanka maamulka waqooyi bari ilaa iyo sidoo kale 10 jug ayaa la maqlay oo loo maleynay inay yihiin qaraxyo diyaarada laga soo tuuray waxaana xogihii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan in waqti xaadirkan xaaladda saliga Gumeys ay tahay mid cakiran sidoo kale ciidamada militariga Soomaaliland dhaqdhaqaaqyo xooggan ay ka wadaan xerooyinka ku yaala duleedka magaalada Laascaanood si gaar ah Og iyo salinta waxaana xogihii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan in militariga Soomaaliland ay doonayaan in ay weerar ku ekeeyaan saliyada ciidanka SSC Khaatumo ay ku leeyihiin deegaanka Gumeys dhawaan ciidanka maamulka waqooyi bari ayaa dhaqdhaqaaqyo xooggan waxay ka bilaabeen deegaano ka tirsan gobolka Sanaag si gaar ah aaga magaalada Cerigabo sidoo kale deegaano cusub ay la wareegeen waxaana culeyskan uu durba Soomaaliland ku sabab ayaa leeyahay in iyaduna isla maanta ilaa iyo caawo iyo shalayto ay dhaqdhaqaaqyo xooggan ka sameeyso duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool saligida ee Og iyo sidoo kale salinta ayaa waxay ka mid yihiin saligida ugu waaweyn ee waqti xaadirkan ay ku leeyihiin gobolka Sool waxaana xusid mudan in Soomaaliland maalmihii ugu dambeeyay askar badan sida madani ay soo gelisay deegaano ka tirsan gobolka Sool madaxweyne Firdhiye ayaa wax uu dareensanaa in ay jirto khatar amni oo kaga imaanaysa dhinaca militariga Soomaaliland waxaana ciidamadiisa uu ku amray in Soomaaliland iyaduna la dareensiyo culayska waqti xaadirkan ay soo saaraan culays la mid ah sidoo kale laga weeraro dhinaca magaalada Cerigabo Soomaaliland ayaa iyaduna waxay u muuqataa in arintaas ay ka jawaabayso waxaana la sheegay in duqeymaha iyo qaraxyada laga maqlay saliyada ciidamada maamulka waqooyi bari ee deegaanada Gumeys iyo deegaanada kale ee ka tirsan gobolka Sool ay yihiin diyaarada sida la sheegay adeegsanayaan ciidamada militariga Soomaaliland inkastoo waqti xaadirkan aan si dhab ah arintaas loo xaqiijin karin xogaha qaar waxay tilmaamayaan in dowladda Soomaaliland ama Soomaaliland dhawaan ay heshay hubka noocyadiisa kala duwan si gaar ah madaafiicda dhulka laga gano iyo diyaarado dagaal oo ka heshay dowladda wadanka Taiwan xitaa dadka qaar waxay leeyihiin qaraxyada laga maqlay duleedka magaalada Laascaanood waxaa loo badinayaa inay yihiin madaafiicda nuuca dhulka laga tuuro kuwaasi oo waqti xaadirkan ay adeegsanayaan Soomaaliland ayaa bilihii ugu dambeysay iyo toddobaadadii tagay waxay tijaabisay hubka noocyadiisa kala duwan si gaar ah madaafiicda meelaha fofog laga hago sida qoriga BM rocket kaasi oo la sheegay in qorshoodu waa in ay ku qalqalgeliyaan amniga magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool
sidoo kale militariga Soomaaliland ayaa gebi ahaanba waxay doonayaan inay ka hortagaan qorshe kasta oo dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka waqooyi bari ay ku doonayaan inay isugu ballaariyaan deegaano ka tirsan Soomaaliland sida ay aaminsan Cabdiraxmaan Ciro ayaana dhawaan waxa uu xaqiijiyay in ciidamada militariga Soomaaliland iyo ciidamada madaniga ah ay diyaar u yihiin inay ka howlgalaan saddexda gobol ee kala ah Sool, Sanaag iyo qaybo ka tirsan Togdheer. wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya furimaha dagaalka waxay sheegayaan in ciidanka maamulka SSC Khartoum waqti xaadirkan aysan bixin wax jawaab ah ee uga yimid dhinaca magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, waxaana soo hadlay madaxweyne Cabdiqaadir Cali Fadhi isagoo yiri wax jawaab ma bixin kartaan ilaa aad ka ogaataan waxyaabaha waqti xaadirkan saligidiina ka socda iyo halka laga soo tuurayo. saraakiil badan oo ka tirsan maamulka waqooyi bari ayaa ku sugan furimaha hore ee dagaalka waxayna ilaa iyo haatan bixinin wax xoga oo ku saabsan madaafiicdan caawa iyo duqeyntan caawa laga geystay saligyadooda ku yaala duleedka gaar deegaanka lagu magacaabo Guumeys waa waqti xaadirkan furinta dagaal ay ugu dambaysa ee laga difaaco magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo ciidanka militariga Soomaaliland ay u jiraan wax ka badan 150 kilomitir. Soomaaliland ugu yaraan waxay doonayaan istiraatiijiyad dagaal oo macno leh iyagoo doonaya in ay ku dhawaadaan deegaanada ka agdhow magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool si ugu yaraan ay qalqal u geliyaan amniga garoonka diyaaradaha magaalada Laascaanood. mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si joogto ah waxay uga soo degaan garoonka diyaaradaha magaalada Laascaanood. Soomaaliland waqti xaadirkan ma haysato hub si toos u gaari kara garoonka diyaaradaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, sidaas daraadeed waxay ku khasban tahay inay qabsato xerooyinka waqti xaadirkan ay ku sugan yihiin ciidanka maamulka SSC Khartoum iyagoo xitaa doonaya in xitaa ay ku laabtaan saldhiggii ay ka weerari jireen magaalada Laascaanood ee Goojacade. SSC Khartoum ayaa iyadoo naftirkeeda waxay dareensan tahay qorshaha ciidamada militariga Soomaaliland. Cabdiraxmaan Ciro dhawaan waxa uu amray in xitaa dhalinyarada beesha dhulbaantay iyo waqooyi bari u dhashay ee hubka qaadi kara looga baahan yahay in furimaha hore ee dagaalka ay iska xaadiriyaan. dhanka Soomaaliland marka loo eego saraakiishii ugu muhiimsanaa ee qaybta bari ayaa howlgaladan iyo sidoo kale gulufkan dagaal hogaaminaya waxaana qayb ka ah taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland lagu magacaabo Nimcaan Gaxnuug iyo sidoo kale Mahad Cambaashe oo ah jarnaal ka soo jeeda gobolka Sool. waqti xaadirkan Soomaaliland